sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay markii dib loo furay masaajidka Xaaji Sofiya, madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan ayaa yidhi masaajidku wuxuu astaan u yahay soo nooleynta ilbaxnimadeena. Wuxuu yidhi alle ayaa mahad leh oo i soo gaarsiiyey maalintani qiimaha badan. Waxaan rajaynayaa in aadaanka cibaadada iyo quraanka aanan laga gooyin masaajidkani ilaa laga gaadho qiyaamaha. Erdogan ayaa sidoo kale soo dhigay bartiisa Twitterka muuqaal salaadii Jimcaha lagu tukanayay masaajidka Xaaji Sofiya markii ugu horeysay kadib 86 sanadood. Madxafka caanka ah ee Xaaji Sofiya ayaa 24kii bishii Julaay ee sanadkii hore mar kale loo bedelay masjid kadib go'aan uu gaadhay madaxweyne Tayyip Erdogan. Madxafka caanka ah ee Xaaji Sofiya ayaa 24kii bishii Julaay ee sanadkii hore mar kale loo bedelay masjid kadib go'aan uu gaadhay madaxweyne Tayyip Erdogan. Go'aanka Erdogan ayaa daba socday xukun ay maxkamadda soo riday oo ahaa in si sharciga baalmarsan markii hore goobtaasi looga dhigay madxafka. Xaaji Sofiya oo la dhisay muddo 1500 sano laga joogo ayaa waxaa markii koowaad loo asteeyay kaniisad, balse boqortooyadii Cusmaaniyiinta ayaa sanadkii 1453 u bedeshay masjid. Goobtan oo ka mid ah kuwa caalamiga ah ee u diiwaan gashan hay'adda UNESCO ayaa dowladii Turkiga ee 1934 waxa ay ka dhigtay madxaf. Islaamiyiinta Turkiga ayaa intii muddo ahba ku baaqayay in Xaaji Sofiya mar kale laga dhigo masjid, balse waxaa arrinkaasi diidanaa xisbiyada mucaaradka ee aan diinta aaminsanayn. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo madaxda diimaha ee caalamka ayaa dhaliilay go'aankaasi. Xaaji Sofiya ayaa waxaa markii ugu horeysay dhisay boqortooyadii Byzantine qarnigii 6aad ee milaadiga, balse waxaa markii dambe masjid ka dhigay Cusmaaniyiintii oo sanadkii 1453 qabsaday Qisdaaniyiinta maantana ah Istanbul. waxaa markii dambe madxaf ka dhigay hogaamiyihii aasasay Turkiga casriga ah Mustafa Kemal Atatürk. Tayyip Erdogan oo dhashay bishii Febraayo ee sanadkii 1954 waa wiilka nin ka mid ah ilaalada xeebaha uu ka howlgali jiray xeebta uu Turkiga ku leeyahay badda madow. Markii ay da'diisu gaadhay 13 sano, aabihiis wuxuu go'aansaday inuu u guuro magaalada Istanbul, isagoo markaasi rajaynayay in shantiisa caruurta ah ay yeeshaan mustaqbal fiican. Isagoo dhalinyaro ah ayuu Erdogan iibin jiray liin, bambeelmo iyo rooti si uu lacag dheeraad ah u helo. Isbuul Islaami ah ayuu wax ku bartay ka hor inta uusan cilmiga maamulka u qalin jibinin jaamacadda Marmara ee magaalada Istanbul. Wuxuu sidoo kale ciyaari jiray kubadda cagta ee mishaarka lagu qaato. Intii u dhaxaysay 1970kii Meeyadii ilaa 1980kii Meeyadii wuxuu ku jiray ururada Islaamiga ah, wuxuuna xubin ka ahaa xisbiga Najmuddin Erbakan. 1994 ilaa 1998 wuxuu ahaa duqa magaalada Istanbul ilaa markii ay militariga awoodda xoog ku qabsadeen isla markaana la mamnuucay xisbigiisa. Sanadkii 1999 wuxuu xabsi ku jiray muddo 4 bilood ah kadib markii uu meel fagaaro ah ka akhriyay gabay qarannimo doon ah oo beydadka ku jira uu ka mid ahaa masaajidyada waa xeryaheena militari. Bishii Agoosto ee sanadkii 2001 wuxuu aasaasay xisbiga AKP isagoo garab ka helaya Cabdullaahi Guul oo markaasi ay isbahaysanayeen. 2002 ilaa 2003 AKP wuxuu ku guuleystay aqlabiyadda doorashada baarlamaanka. Erdogan ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaare. Bishii Juun 2013 wuxuu ciidamada amniga u adeegsaday mudaaharaadyaal isku dayay inay beerta cagaaran ee Gezi Park ay ka hor istaagaan mashruuc dhisme ah oo ay dowladda ka sameynaysay. Bishii December 2013 fadeexad weyn oo musuqmaasuq ah ayaa ku soo baxday dowladdiisa. 3 wiil oo ay dhaleen wasiiro ayaa la xidhay. Erdogan wuxuu arrintaasi ku eedeeyay Gulen kooxdiisa.
bishii Agoosto 2014 wuxuu noqday madaxweyne kadib markii ay Turkiga ka dhacday doorashadii ugu horeysay abid ee toos looga dooranayo madaxweyne. Milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağımı, bishii Julaay 2016 wuxuu ka badbaaday afgambi militari oo looga sameeyay ciidanka dhexdooda. Bishii Abriil 2017 wuxuu guul ka gaadhay aftadii qaran oo uu ku kordhisanayay awoodaha madaxweynaha.